daawadayaal kusoo dhawaada saxafi film su'aalaha baad ka dhigtaan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka dalkaasi Hindiya. barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caanka Anil Kapoor oo ka hadlay in jilaaga caanka ah Salman Khan uu nasiib u yahay marka uu film la daadiyo marka uu baahdo in uu ka helo kharash ama bad lacag aad u badan filmaanta uu sameeyana uu raadiyo qaabkii uu Salman Khan film ula daadihin lahaa. filimka ugu dambeeyay ee labadan actor ay wada daadiyeen waxa uu ahaa Race 3 oo uu qayb ka ahaa Anil Kapoor, sidoo kale Baby Doll ayaa wax ka daadiyay. filimkaasi lacag badan ayaa ka soo xarooday inkastoo filmaantii sanadkan soo baxay laga lacag badnaa marka ay noqoto dhanka box office, waxaana ka lacag badnaa Sanju oo lacag gaaraya ilaa 400 oo karoor oo Indian rupees ay ka soo xarootay. haddaba jilaaga caanka ah ee Anil Kapoor maantan uu kala duldhacay actorka caanka ah ee Salman Khan maxaa ay tahay, maxaase keenay in actorka Salman Khan film la jiro in uu lacag badan ay soo galiso. taasi waxaa keentay filmaantii u dambeeyay ee Salman Khan uu daadiyo dhamaantood waxay ahaayeen filmo lacag badan ay ka soo xarootay, halka filimka Tubelight kaliya uu ku qasaaray jilaaga caanka ah ee Salman Khan. filimkaasi sidii la filayay ma uusan noqon, waxaase la daadihinayay isaga walaalkiisa Sohail Khan. filimkaasi sababaha keenay in uu flop noqdo oo lacag badan ay ka soo xaroon waayaan waxa ay ahayd sheekada filimka iyo filimka oo isagu ahaa remake ama dib u samayn film horey loo jiray. haddaba waxaa la filayaa in jilaaga caanka ah ee Salman Khan dhawaan uu bilaabo daadinta filimka Bharat oo ay ka carartay amaba isaga tagtay actorada caanka ah Priyanka Chopra doorka koowaad ee filimkaasi ay ku lahayd sababa iyada aysan shaacinin oo weli aanan soo bixin xaqiiqda dhabta ee ka dambaysa actorada sababta ay filimkaasi uga tagtay. balse ujeedka aynu rabno waxa ay tahay in isdul taagna aynu u baahannahay waa sababta uu Anil Kapoor u yiri actorkii lacag u baahdaa amaba lacag raadinaya marka uu film sameynayo Salman Khan film hala dhiga maxay tahay. Salman Khan taageero badan ayuu dunida ku leeyahay, filmaanta uu daadiyana lacag badan ayaa ka soo xarooda, waana sababta Anil Kapoor ku xushay cidii lacag u baahan yahay aado Salman Khan isaga ayay agtiisa taalay. hadalkaasi markii dhinacyo badan laga fiiriyo waa sax oo Anil Kapoor waa uu ku saxan yahay, ma jiro actor ku aghangoobay ama ku qada film ula daadiyay jilaaga caanka ah ee Salman Khan, inkastoo filimkiisa Tubelight aanan ka ahayn oo cidda filimkaasi ku qasaartana waa isaga walaalkiisa oo Sohail Khan. balse filmadiisii wixii ka dambeeyay filimka Dibangi oo iska lahaa walaalkiisa Abbas Khan waxaa la sheegay in Salman Khan ay lacag badan uga soo xaroodeen. kontraktiga u saxiixa Salman Khan iyo kan Amir Khan waxay ku kala duwan yihiin. Amir Khan diyaar waxa uu yahay filimkaasi inuu wax ka maalgeliyo wixii ka soo baxana Divide by 2 ama laba in loo qaybsado isaga iyo cidda shirkada kula, halka jilaagan kontraktiga uu galaya ay tahay filimkii ku qasaari maysid aniga ka huba ee lacagta ii sheeg. inkastoo Salman Khan laftiisa uu ka mid yahay maalgeliyaasha filmaanta, haddana weli lugiisa isku muusan taagin oo shirkad iskiisa uu leeyahay oo filmaanta soo saarta oo filmadiisa uu dhiyo ma jiro, inkastoo shirkadiisa ay film soo saarto oo dad kale ay filmaantaasi jiraan. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay Anil Kapoor oo sheegay cidii lacag u baahan ha aado jilaaga caanka ah ee Salman Khan film hala daadiyo. intaas ayaynu ku soo afmeerinaa. halkaad barnaamijka ka daawanaysaan waa Saxafi Films. haddaba haddii aadan ka mid yahay baada ku xiran Saxafi, ugu horreyn barnaamijkan aad daawanaysa laag saar kadibna subscribe Saxafi Films taaba gabalka si barnaamijyada Saxafi ka baxay joogto kugu noqdaan. fikirkaad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta comments-ka Saxafi Films inagoo isku duuban oo baada Saxafi waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.